madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan muhiim ah kula yeeshay dhigiisa dalkan walaalahana ee Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan xarunta madaxtooyada dalkaasi Ankara. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba-geesoodka ee Soomaaliya iyo Turkiga ka oo ku dhisan walaaltinimo iyo iskaashi istiraatiiji ah muhiimna u ah labada dal. Waxay isla qaateen in la sii anbaqaado dhamaystirka fulinta heshiisyada iskaashiga wadajirka kana dhexeeya labada dowladood. Madaxweyne Erdogan ayaa si qoto dheer uga wada hadlay howlgalladii dagaalka ka dhanka ah argagixisada khawaarijta oo dhibaato ku ah xasilloonida iyo horumarka gobolka, iyagoo bogaadiyay miro-dhalka iskaashiga labada dal ee dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo wiiqista argagixisada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka Turkiga garab istaaga hagar la'aanta ay siiyeen Soomaaliya, wuxuuna xusay doorka muuqda ay ka qaataan dib u habeynta hay'adaha amniga iyo garab istaagga dagaalka lagula jiro khawaarijta. Dhankiisa, madaxweynaha Turkiga Mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa tilmaamay in dalkiisu sii wadi doono taageerada uu siiyo Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada la dagaalanka argagixisada, taageerada farsamada iyo midda bini'aadanimo. Hodan Cabdiqaadir Sheekdoon, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.